qof aan xanuunsanaynin ma jirto. ruux walbo bini'aadan ah wuu xanuunsanayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. dhammaantiina ummadda Nabi Maxamed meel walba aad joogtaan waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan oo qurux badan. Hadda waxaa degdeg igu soo gaaray walaalkeeni, saaxiibkeeni, jilaageeni, muriidi Ajakis inuu xanuunsan yahay oo isbitaal uu ku jiro oo weliba koomo uu ku jiro. qof walbo oo ummadda Nabi Maxamed ah waxaan ka codsanaynaa inuu noogu soo duceeyo walaalkeena Ajakis inuu Ilaahay caafimaad noo siiyo. waayo adduunyadan qofkaad aragtid maanta waxaa laga yaabaa beri inaad arki weysid. Ilaahay jiro iyo caafimaadba asiga ahaayo subxaanahu wa tacaala. dhammaanteen in qof walbo oo muslin ah oo muslimnimada sheegto qofaan jiranaynin ma lahan, qofaan caafimaadaynin ma lahan, qofaan caafimaadaynin ma lahan adduunka. anaga maxaan u qaban karnaa? anaga waxba uma qaban karno, laakiin waan u ducayn karnaa. walaal, haddaad aqoon u leedahay Ajakis maanta waa qof xanuunsan oo haddana koomo ku jiro. waxaan kaa codsanayaa inaad walaalkeeni u ducaysid. jirada Ilaah baa haayo, caafimaadkana Ilaah baa haayo. ruux bini'aadana maanta jirada ka qaadi kara ma jiro aan Allah subxaanahu wa tacaala ahayn. anaga aad baan u jecel lahay ruux walba bini'aadan ah inuu caafimaadkiisa tamaam oo noqdo. inkastoo maanta anaga Soomaali aan nahay haddana ummadda Nabi Maxamed aan nahay, waxaana laga baahan yahay walaalkeena inaan u duceyno siduu Ilaahay caafimaad taam ah u siiyo. anagoo dhan waan u wada xiisnaa, waan u baahannahay inuu noo caafimaado. walaalkaaga inaad u duceysid siduu Ilaahay xanuunka uga qaado. qofaan dhimanaynin adduunka ma joogo, qofaan xanuunsanaynin ma jirto. ruux walbo bini'aadan ah wuu xanuunsanayaa. laakiin maanta haddaa adiga qofkaas ka caafimaad fiican tahay, waxaa lagaaga baahan yahay qofka walaalkaaga ah inaad u duceysid siduu Ilaahay jirada Ilaahay uga qaado. inta muslim Nabi Maxamed ah oo xanuunsan waxaan Ilaahay uga baryaynaa caafimaad taam ah Ilaahay inuu siiyo. walaalkeena Ilaahay caafimaad taam Allah noo siiyo. adduunyadana ujeedin waa halkiis la wada gelin. qofka maanta koomada ku jiro beri hadduu soo caafimaado waxaa u baahan waalidkiisa, u baahan ciyaalkiisa, u baahan qof walba bini'aadan ayaa u baahan. laakiin adiga waxaad u qaban kartaa inaad u duceysid. walaal, adigoo mahadsan u duceey walaalkeena Ajakis.